xabad xanuunka waa xanuun ay ka cabanayaan bulshooyinka dunida guud ahaan gaar ahaan in badan oo ka mid ah dadkeena ama bulshada Soomaaliyeed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دواد جنرال كدكتور أحمد يوسف كتخصصي عذرات جود نف مرينكا أما عذرات كل عفيرة. هدي الجنرال كقعصوب كفضلا سبسكرايب ده سيادنا على صعد مر والبفضلا ريح جنب الألف. maanta waxaa ka hadli doonaa maxaa sababa xabad xanuunka. xabad xanuunka waa xanuun ay ka cabanayaan bulshooyinka dunida guud ahaan gaar ahaan in badan oo ka mid ah dadkeena ama bulshada Soomaaliyeed. Carol Stokes iyo tiimkeeda oo ah cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda West Virginia ayaa sheegay sababta labaad ee ugu badan ee qaybta emergency-ga loo imaado America inay tahay xabad xanuunka. Runtii aad ay muhiim u ahaan lahayd inaan heli karno cilmi baaris sax ah la isku haleyn karo oo bulshadeena Soomaaliyeed lagu sameeyay cudurrada ay qabaan aan ka tixraaci karno mar walba oo loo baahdo in laga hadlo cudur in wax weyn laga fahmo insha Allah waan heli doonaa waana sameyn doonaa researchyo badan ama cilmi baaris aad u fara badan ilaahay hadduu yiraahdo. xabad xanuunka wuxuu noqon karaa xanuun tilmaamaya cudurro halis ah oo ku dhaca wadnaha ama cudurro iska fudud. sida badan xabad xanuunka waxaa sababa cudurro badan oo kala duwan waxayna ku dhacaan kuwooda ugu badan 4 xubnood oo muhiim ah. 4 xubnood ee hadday xanuunsadaan sababi kara xabad xanuunka waa sanbabka iyo neef mareenka, wadnaha, habka dheefshiidka, murqaha iyo lafaha xabadka. waxaan mid uga hadli doonaa cudurrada ugu badan ee xubin walba u keena xabad xanuunka. qaybta koowaad, cudurrada ku dhaca sanbabka iyo neef mareenka ee sababa xabad xanuunka waxaa ka mid ah naqaska ama asmada, oof-wareenta ama pneumoniyada oo ah caabuq ku dhaca sanbabka qaybtiisa hoose, qaaxada ama tiibishada oo ah caabuq ku dhaca sanbabka, iyo xididada sanbabka oo xinjir ay xirto oo loo yaqaano pulmonary embolism. waxaa raacsan xabad xanuunka calaamado ah inuu qofka naqaska ku dhago ama neef-qabatin uu isku arko marka uu qabo pulmonary embolismka. qaybta labaad, cudurrada ku dhaca wadnaha ee sababa xabad xanuunka waxaa ka mid ah xididada wadnaha oo xirma taasoo sababaysa qayb wadnaha ka mid ah inuu dhinto maadaama uu heli karin oksijiin ku filan wadnihii, murqaha wadnaha oo barara taasoo ka imaanaysa in ay yaraato qulqulka dhiigga soo aadaya wadnaha hadhowna wadnihii inuu aad u shaqeeyo sidaas darteedna uu bararo wadnaha. wadna xanuunka ama heart attack qofka waxaa lagu gartaa xabad xanuunka inuu u dheer yahay xanuun ka imaanaya wadnaha ilaa iyo gacanta ilaa iyo garabka inuu ka dareemayo intoodaas xanuun. sidoo kaleeto caabuq inuu ku dhaco murqaha wadnaha ayadana waxay sababayaan xabad xanuun. intaas waa cudurrada ku dhaco wadnaha ee sababi kara xabad xanuunka. qaybta saddexaad, cudurrada ku dhaco dheefshiidka ee sababa xabad xanuunka waxaa ka mid ah gaaska iyo gaas calooleedka, laabjeexa, beeryaraha oo caabuq ku dhaca ama cudurka loo yaqaano pancreatitis-ka, sidoo kale xameetida in dhagax uu galo. waxaa la arkay in badan bukaanada ka cabanaya xabad xanuunka in ay cudurrada ay qabaan u badan yihiin cudurrada dheefshiidka sida gaaska oo kale iyo cudurrada badanaa ku dhaco sanbabka iyo neef mareenka. intaas waa cudurrada ku dhaco dheefshiidka ee sababi kara xabad xanuunka. qaybta afaraad, cudurrada ku dhaco murqaha iyo lafaha xabadka ee sababa xabad xanuunka waxaa ka mid ah caabuq inuu ku dhasho lafaha feeraha, caabuqaasna uu sababa xanuunkaasna hadhow uu u gudbo xabadkii oo dhan markaa oo qofka uu dareemo xabad xanuun. in ay feeraha soo gaaraan jug ama jabniin, caabuq inuu ku dhaco murqaha xabadka, sidoo kale inuu dilaac ku imaado murqaha xabadka, inuu qofka ku dhashay tuur midda xabadka ama midda dhabarka. waana awood rabbaani ah wax la xukumi kara ama wax uu qofka kontrooli kara ma ahan. intaas waa cudurrada ku dhaco murqaha iyo lafaha kuwaasoo sababi kara xabad xanuunka. haddii aad dareento xabad xanuun isku day inaad si dhaqsi ah ula xiriirto dhakhtarkaaga ama wac qof kuu dhow oo ku geyn kara dhakhtar. haddii uu xabad xanuunka uu la socdo neef-qabad xaaladaada waa emergency, isku day inaad si degdega ku gaartid goobta ugu horeysa caafimaad ee aad heli karto hadduu ilaahay yiraahdo. waxaa aad muhiim u ah in aan la yareysan ama la fududeysanin haddii ay ka cawdaan dadka da'dooda ay ka badan tahay 50 sano xabad xanuun ama dadka qaba xanuunada gaarka ah sida macaanka iyo dhiigkarka oo kale. waxaa muhiim ah in si degdega loola xiriiro isbitaal
ama dhakhtarkooda in lagu xiro sababtoo ah xaalado badan oo emergency ay geli karaan dadkaas waana ka nugul yihiin dadka kale marka loo fiiriyo intaas waa cudurrada ugu badan ee sababi kara xabad xanuunka wax walba si aad u qabatid waxaad u baahan tahay inaad ku baraarugsan tahay og tahay sidaas darteed waxaa mar walba idinla garab taagannahay inaan idin siino talooyin caafimaad ugu wanaagsan oo la hubo kuna salaysan aqoon la xaqiijiyey qof walbana uu heli karo waxaan idin rajaynayaa inaad ka faa'iideen fiidiyogan insha allah usbuuc walba waxaan soo dhigi doonaa 3 fiidiyo oo muhiim ah wixii tale iyo tusaale ah fadlan inoogu soo dir commentiga sidoo kale waxaa commentiga noogu soo qortaa wax walba su'aala aad qabtid iyo cudurrada aad jeclaan lahayd in laga hadlo si aad mar walba noola socoto fadlan subscribe saar aad iyo aad ayaad u mahadsantahay walaal waa inoo mar kale iyo fiidiyo kale insha allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh